ما شاء الله تبارك الله cunadeyna quruxda badneed busbusa casriyadeeni sidaas ay kusoo baxday waa bahal aad u macaan insha Allah waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada asii shay cadeyskiisa casriyo wacan like and subscribe and sharing kana insha Allah lagu dadaalo waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome to Ramala channel. waxaan maanta rabaa inaan idinla wadaago sida loo sameeyo busbusa waxaan rabaa inaan ku daro brown sugar 2 qaado ah, 1 xabo ukun, wax yar una rabaa inaan sameeyo mar wax badan inaan sameeyo baking powder oo 2 koob ah iyo koob oo 2 koob lagu leeyahay 2 qaado ah iyo koob oo gaaley ah, koob saliid ah insha Allah iyo qumbo. waxaan hadda halkaan ku haystaa xabadii ukun, 2 qaado oo sokor ah iyo wax yar vanilla ku dar because carafta vanilla jeclahay intaas waa ugu daray laakiin ma lagu daro. waxa kale oo hadhow ku dareynaa insha Allah baking powder oo 1 qaado ah, haday 2 qaado ay dhahay sorry waa idinka qalbay because bahalku yar yahay. marka baking powder oo 1 qaado ah iyo waxaan ku dareynaa saliidna waa ku dariye koob saliid ah ku jiro, xabad ukun, sokorti iyo sheekadii wax yar oo vanilla aan ku dar baking powder ka ku dareynaa iyo xaniinta iyo waxa kale oo ku dareynaa abura biraal ka noqdo koobkaas oo yogurt ku dareynaa intaas oo isku qaseynaa iyo koob oo ah qumbo insha Allah. galeydana waa galeydii corn milk ahaa insha Allah intaas oo isku dareynaa ila socda. hadda waxaan ku darayaa baking powder-ka ku darayaa 1 qaado haddana waxaan ku darayaa qumbihii insha Allah waa isla koobkii wixda inay hal cabir noqdaan ayaa loo baahan yahay. haddana waa mix graynaya insha Allah. tan wixii dhan waa isku dardaray sidaas uu kusoo baxay insha Allah. saxankeena ku shubaneynaa kadibna ovenka gelinaynaa 270 degree kor iyo hoos insha Allah sida caadiga ahayd oo cake loo dubi jiray oo dubayna. kadibna waxaan sameysanaynaa shiiro sokor baan karkarinayaa aan hadhow korkaaga shubayaa insha Allah iyo in yar qumbo iyo in yar loo shiido la socdo insha Allah. waa inoo in yar kadib ما شاء الله bahasheni busbusa halkeeda ku shubnay weel kale oo talgalay inaan ku sameeyo. waxa kale oo sameeyay waan yani sida u jarjar lahay hadda waxa xareejiyay haddana ovenka gelinaya insha Allah. markuu bislaado isku soo noqonayna insha Allah. tan waxaan isku darayaa koob oo biyo ah iyo koob sokor ah, sokorteeni caadiga ayaan isku karkarinayaa insha Allah. markay xoogaa isku milanto xoogaa soo yar adkaato korkan kaga shuban doonaa busbusaha. waxa kale oo aan korka kaga bilbilay loos shiidan loos shiidan iyo waxaan kaloo korka kaga bilbilay in yar qumbo ah. qumbahan ku qasay inta ii soo hartay insha Allah coconut insha Allah. hadan dabka saaraya oo karkarinaya kadibna korka kaga shubaya. ما شاء الله walaalayaal busbusadeena sidaas ay kusoo baxday carabkeedii noqotay ما شاء الله aad ay soft u tahay. halkaana sokortii aan ugu karkareyso bas waa ka qaadaynaa waana ku shubaynaa hadduu rabbi idmo insha Allah. haatan sokortii aan korka kaga shubayaa insha Allah.
الصعدة looska ayaan korkooda bilbilayaa. insha allah sidaasay kusoo baxday. kadibna hadhow waan jarjaranaynaa wax yar kadib in fridge la geliyo xoogaa yar ay qabowda waaye. saxankan waan ka bedelayaa markay qabowdo kadib ayaan isku soo noqonaynaa hadduu rabraale ka noqdo insha allah. haatan waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal waa kasoo saaray bahalkii fridge-ka, haddana saxankaa saaranaynaa ila socda. maasha allah tabaaraka allah, cunadeeni quruxda badneed busbuusa casriyadeeni sidaasay kusoo baxday. waa bahal aad u macaan insha allah. waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada asii shay cadeyskiisa casriye wacan. like and subscribe and sharingkana insha allah halagu dadaalo. waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.